wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo wehlinayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku soo dhaweeyay wakiilka xafiiska barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Jocelyn Mason. wafdiga qaramada midoobay ee mas'uuliyiinta Jubbaland ayaa kulan nasasho iyo soo dhaweyn ku wada qaatay howlka nasashada madaarka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo. soo dhaweyn kadib Jocelyn Mason wakiilka xafiiska barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wafdigii la socday ayaa xarunta madaxtooyada Jubbaland kulan kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan. wasiiro ka socday 7 wasaaradood ayaa xarunta golaha wasiirada Jubbaland uu kulan kula qaatay Jocelyn Mason iyadoona uu goobjoog ka ahaa Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland. qaar ka mid ah wasiirada 7 wasaaradood ee kulanka uu la qaatay wakiilka xafiiska barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Jocelyn Mason ayaa uga warbixiyay wada shaqeynta ay xafiiska barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee Soomaaliya la leeyihiin. Cabdiraxmaan Cabdi Axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland ayaa booqashada iyo kulamada wakiilka xafiiska barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee Soomaaliya warbaahinta uga warbixiyay socdaalka Jocelyn Mason iyo kulamada waxa looga hadlay ayadoo laga duulayo shaqada baaxadda leh ee hortaala dowlad goboleedka Jubbaland iyo sare u qaadida wada shaqeynta hay'adaha caalamka ayaa maanta waxaan ku soo dhaweynay magaalada Kismaayo wafdi ka socday hay'adda qaramada midoobay ee UNDP. wafdigan ayaa hogaaminaya wakiilka u qaabilsan Soomaaliya iyo xubno kale oo aad muhiim u ah ee ka shaqeeya laamaha faraha badan ee ka kooban tahay hay'adda UNDP. wafdigan ayaa u imaaday inay u kuura galaan mashaariic waaweyn iyo kuwa soo socdaba siday ugu kuura gal lahaayeen una dhageysan lahaayeen baahiyaha wasaaradaha si ay ugu lifaaqaan qorshooyinkooda. soo dhaweyn kadib wafdigan waxaa qaabilay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowladda Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan halkaas oo kala hadlay shaqooyinka iyo mashaariicda hordabinta oo la dowlad goboleedka Jubbaland. kulanka uu madaxweyne ku-xigeenku kula kulmayay waxa goobjoog ka ahaa wasaarado ku dhow ilaa 7 ay wada shaqeyn dhow la leeyihiin hay'adda UNDP halkaas oo looga dhageystay mashaariicda ay la wadaan wasaaradahaas halka ay marayaan caqabadaha jira sidii wax loo sixi lahaa iyo mudnaanta mashaariicda u ah wasaaradahaas. intaas kadib waxay si gaar ah u booqdeen wasaaradda haweenka oo ma aragtay baahiyo baaxad leh ay ka dhageysteen kadibna ay u gudbeen wasaaradda environmentka ama wasaaradda bay'adda halkaas oo ka socday mashruuc oo loogu talagalay in lagu kaabo ama lagu taageero wasaaradaha qaar dhinaca solarka systemka oo aad muhiim ugu ah wasaaradahaas. waana xarag jareen wasiirka wasaaradda environmentka ama bay'adda ayaa goobjoog ka ahaa xarigana la jaray runtiina wuxuu ahaa mashaariicda guuleystay ee dowlad goboleedka Jubbaland. wafdigu aad ay uga mahadceliyeen sida sharafta leh oo loo soo dhaweeyay iyo sida ma aragtay Jubbaland ay diyaar ugu tahay in la dardargeliyo shaqooyinka maadaama caqabado badan Jubbaland ay haysteen ee dhinaca siyaasadda haddana diyaar loo yahay dowlad cusubna ay dhalatay in la dardargeliyo mashaariicda waaweyn wax qabadkana u ah waxna ka bedeli kala nolosha bulshada reer Jubbaland. aad bay uga mahadceliyeen soo dhaweynta wafdigana si nabad ayaan ku celinay aad iyo aad u mahadsantii. Xasan Yuusuf Maxamed Shafadyare raadiyaha iyo telefishinka dowladda Jubbaland magaalada Kismaayo.